السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلام يا سومالي محمد الشودو هذا marka hore waxaan idinka codsanayaa xushmada ku dheehan tahay hadduu muuqaalkan uu soo gaaro inaad sheer garaysaan leegtan ay saartaan. waxaan wadnaa barnaamij wacyigelin waxaa maalmahan baraha bulshada ku soo batay waa tuugo dadka baraha bulshada ka soo weeraraysa, facebooka ka soo gelaysa oo social media tuuga ka dilaacday. marka wacyigelintaas aan rabnaa bal dadka inaan uga dignee muuqaalka nala sheer gareey. waxaa dhacday niman reer qardhooda oo macallimiina, laba macallin, in habeen saddexaad facebookyadoodii loo soo dhacay, facebookoodina lagala wareego ilaa imika gacanta lagu haysto. ragga waxaa loo sameeyey, waxaa loo soo dirayaa codes baa loo soo dirayaa, wax code ah. wareeda waxaa Soomaaliya nili soo dirayo war ka digtoonaado, ha isku furinina, ha furinina, xogtaada lagala wareegaya. macallimiintii waxaa la sameeyey code baa loo soo diray, codekii bay fureen, facebookoodii baa lagala wareegay. ilaa imika facebookoodii gacan laguma hayo. jaani niman reer koonfurooda lambarka hormuuda ku qaraabanaya ayaa isticmaalaya lambarka. waa laba nin oo macallimiin oo ixtiraam badan iyo sharaf reer qardhood u hayaan. midna Sheekh Cusmaan buu macallin ka yahay, midna iskuulka carabtu maamule ka yahay. guuleed iyo waxaa la kala dhahaa Ashar baa la kala labada macallin. facebookoodii gacan laguma hayo. kaaga daranta maxaa la sameeyey? facebookoodii baa la dhex galay, waxaa jaatin laga sameeyey asxaabtoodii. waxaa lagu qaraabtay hooyaa xanuunsan, cusbitaal bay taallaa, oksijiin baa ku xiran, lacag ii soo dir. lacagaasaa nimankii loogu xaraq. waxyaalaha cajiibka ah dhacday waxaa ka mid ahayd, mid ka mid a wuxuu yidhi lacagaasaa laygu soo diray, lambarkii sahalka ahaa baa lacag laygu soo diray. qofkaas waa soo wacay, hooyaa laha caafimaad iyo waad wada aragteen baan filayaaye. ka digtoonaada social mediaha ama facebookyada tuugada soo gashay oo dadka dhacaysa. war ka digtoonaada, ka digtoonaada waxyaalaha nilii soo dirayana ha furinina, ka digtoonaada. xalay gabadh dibadda joogtaan waxaan u diraya muuqaal aan asxaab nahay. markaas waxay tiri tuugaa soo badatay, anaguna haddaanu qurbo joognahay ma furno waxyaalaha qaarkood, sida Soomaalida kuma degdegnayn. war maxaa ii soo qordhabeed? marka saas digtoonaad kala. facebookaagi baa lagala wareegaya, xogtaadi baa lagala wareegaya, dhibaataa lagu geysan karaa. marka muuqaalka sheer gareeya, dadku ha ka digtoonaadeene wacyigelintaas iyo fariintaas aynu qayb ka noqono wacyigelintaas. marka macallimiinta waxaan rajaynayaa in facebookoodii ay ku guuleysan doonaan oo ay dib ugu soo noqon doonaan oo ay ku guuleysan doonaan. sidoo kale waxaan rajaynayaa tuugadaasna in laga digtoonaado, aan lacag loo dirin. war ku cimri qaata macallimiinta sida loo galay. haddii koor lagu soo diro ha furin. haddii intii qof masaajarkiis lagala soo hadlo wax su-aal xoogaasi sida lagu weydiiyo ha ka jawaabin oo lacag ha dirin. macallin ka mid a wuxuu yidhi koorka markii laysoo diraayo buu yidhi anuu mashquulsan baa koor laysoo diray. macallinka laga jabsaday baa layga soo diray buu yidhi. guuleed baa masaajarkiisa laga soo diray facebookiisa. ustaad allaha ku sharafee koodka ii soo celi. xoogaa waa shakiyey buu yidhi. guuleed baan wacay. guuleed waa qaban waay lambarka oo midhaa waa mashquulsanaa. haddana buu yidhi marka kadib 2 sac kadib wuxuu yidhi macallimaa ii soo diri koodka oo waxaan nimnahay. wuxuu yidhi waaba aamin, waxaan isir war waa macallinkii arrin kaga xanimay. ilaa dad macaarifa iyo asxaab istiqaani macallimiin isla jaatin garayn jiray. macallinkan hooyadiis xanuunsan tahay lagu mamartiyooday. hooyadiis waxaan horey u xanuunsaday, allah caafimaad maamada xanuunsan tahay. dabcan dee maxaa maamada xanuunsiiyey inay xanuunsan tahay? tuugada ogeysiiyey ma jaatin hore u arkay? allahu aclam, ma garanayo. marka tuugadaas aynu meel uga soo wada jeensano, fariintana aynu isla faafino. baraha bulshada tuugada ku jiro, qowlaystada ayo tuugada ayo walaal ummad alle ka qabiye dadka dhicinaya shaqaysta. waa idin salaamayaa, isma dhaafno.